Agosto waxaan diyaarnay barnaamij inaan keenno wadanka Garowe agab iyo waxaas marka barnaamijka markuu soo dhawaaday aniga asagoo noo soo dhawaaday Omar waxaan dhacday wuxuu dhahay waxaan aadayaa Norway waxaan ku soo qabanayaa concert kooda Luulyo aniga bishii lixaad wada hadlaynay kooda Luulyo aan soo qabanayo dhahay oo bishii toddobaad in haddana qaldaneen waxaa timaaday arrin shil oo ku timi walaalkay Omar marka waxaana ka mid ah Soomaha Maxamed Qadirow ninkii xubinta ka ahaa waliba qayb weyn ka ahaa geesmadeedana lahaa Omar inuu kooda Luulyo ku qabsado dalka Norway صح jibro mahadsan tahay waxa laga yaabaa hadallada toostoontooda in lagaaga fiican yahay laakiin sida kale aad active u tahay haddaan maaragtay ku soo dhawaado oo aan dadka u bayaamiyo kama mid ahayn xubnaha mataqaanaa soo dhaweeyey waxaan ahaa qofkii isaga ku casumay wadankan wuxuuna ku yimid casumaad aan anigu fidiyey maadaama aan gudoomiyihii jaaliyadda ahay waxaan ugu talagalnay inuu nala qabto shaqooyin ay ka mid tahay kooda Luulyo iyo inuu noo sameeyo wax la yiraahdo ladies night ama habeen haweenka loogu talagalay markaas sidaas ayuu ku yimid casumaad rasmi aan u fidiyey buna ku yimid taasaana keentay inuu nala yimaado shaqooyinkii aan wada qabanaynayna waxay dhamaatay oo ku ekayd 15ka bisha July wuxuuna haystay oo aan u goynay tigid go and bag ah oo Istanbul Oslo Istanbul ah oo uu bixi lahaa 16ka bisha July sidaas aan ugu talagalnay qorshahayaguna wuxuu ahaa inaanu mataqaanaa labo maaragtay week uu nala joogo wixii intaa ka dambeeyana asagu uu xor u yahay meeshuu aadayo inka kale tuu qabsanayo aad ma santahay marka sidee shilkan ku imaaday uu Omar ugu imaaday 15kii July markaanu dhamaysanay hawshii Norway ka bacdi ayuu wuxuu go'aansaday inuu u gudbo Sweden anaga wuxuu naga dhamaaday si official ah sidaan ku bixiyay waraysiyadii aan siiyay Cabdi Xaafid iyo kan aniga TikTok-gayga soo dhigay labadaba oo aan cadaynay inuu anaga naga dhamaaday 15kii bishii July wixii inta ka dambeeyay wuxuu joogay Norway 3 habeen oo isagu si private u joogay oo u tagay magaalo aan Oslo ahayn oo ay joogto maamada ama islaanta eedadiisa familka ay yihiin iyo gabadheeda ka bacdina wuxuu u soo gudbay magaalada Gothenburg oo Sweden ku taala waxaana ku soo dhaweeyay Soomaalida halkaas waxayna rabeen inay u dhajiyaan ama u dhagsanayd 1 Agosto inuu halka kaga qayb galo waxa kaloo isaguna jiray program kale oo France ah oo ku xigi lahaa programkaas sidaas ayuu ahaa jadwalkiisu wuxuuna ahaa mid uu isagu xor u yahay go'aankeedana uu leeyahay laakiin anaga officially wuxuu naga dhamaaday officially af Soomaali waxa lagu dhahaa si rasmi ah shaqadayadu waxay ku ekayd maalinta 15ka ah anigu mana ku talagalsanayn inuu ama Sweden aado ama France aado waxaan gooyay tigid go and bag ah oo Istanbul Oslo Istanbul ah sidaas ay ahayd laakiin asaga doortay inuu u gudbo wadanka Sweden isaga choice-kiisayna ahayd wuxuu nagu soo noqday Arbacadii habeenkii baxaysay oo Khamiis soo galeysay ila muusan soo contact garaynin cid familka aan lama contact garaynin si kadis ah ayuu u soo noqday wuxuu ku talagalay wuxuuna wacay gabadha ayaan Ciise la yiraahdo oo u sheegay inay u jarto tigidka uu ku soo noqonayo si iskiis ah oo aan qorshaysnayn ayuuna habeenka u yimid
subaxiina wuxuu bilaabay in uu xaaladiisu ay isbedesho oo maaragtay wixii aad kulligeen wada ogeyn kabacdina waxay noqotay inaan tago oo markuu live-ka galay aan aado tuulada ayadoo adreeska la ii soo diray oo aanan markii horeba ogeyn adreeska iyo meesha ay tahay laakiin muddo dheer aan raadinayay inaan adreeska helo waxayna noqotay inaan live-ka ka qabto oo ka istaajiyo anoo ilaalinaya sharaftiisa sumcaddiisa iyo caafimaadkiisaba sidaasna ay ku yimaadeen dadka immediate familkiisa ah oo walaalkiis eedadiis dhashay iyo xaaskiisa oo dumaashadiis ah ayna soo kaxeeyeen oo keeneen gurigii ay u diyaariyeen oo qolkii ay geeyeen oo uu qubaystay oo maqribkii tukaday oo si degan u galay oo uu familkii u sheekeeyey oo xaalad normal ah uu ku jiray markaa kadib ayaa waxaan anigu soo jeediyey inuu 1 Agoosto ka qayb galo waxaan la xiriiray rag dawladda ka tirsan waxayna ii sheegeen inuu listada ku jiro waliba jaamacadda Baraani baan aad u wacay maanan helin laakiin rag kalan helay oo isaga la hadlay jaamaca wuxuuna ii sheegeen inuu yahay top on the list yani inuu number 1 yahay dadka haddii fanaan la casumayo qofka ugu horreeya inuu yahay marka anoo faraxsan ayaan imid waxaana ku iri arrintaasaan rabnaa inaan galno kabacdi ayuu wuxuu weydiiyey walaalkiis soo kaxeeyey inuu soo saaro baasaboorka alaabtiisa ku dhex jira baasaboorkii markii la soo saarayna oo la furayna waxaa la arkay mataqaanaa in uu ku jiro inuu maaragtay saaran yahay inuu page-ka hore go'an yahay waan weydiiyey waxaan ku iri maxaa ku dhacay baasaboorka yaa page-kan gooyey anaga laftirkaygu waa yaabnay wuxuuna sheegay isagu ma aqaan ilaahay baa og laakiin markaas aad wuxuu u eedeynayay gabadha isku soo wada duub markaan nasinay oo maskaxda u dejinay ayaan casho doontay oo 12 habeennimo ay tahay 12 habeennimo kabacdi waxaan ku talagalay inuu seexdo muddo saacad ka yar anoo maqan ayaa waxaa yimid aayadiis oo aabbihi ka dhintay iyo walaalkiis aabbihii dhalay markay gambalaalka soo garaaceenna wuxuu bilaabay inuu live ku qabto kaamirada ku qabto oo yidhaahdo juudaan baa ii timid inay cunaan bay rabaan qolkiis ku soo xiro waa iska tuuraya yidhaahdo sidaasna booliiska iyo ambalaasta loogu yeero maadaama mar hadduu qofka yidhaahdo waxaan khatar ku ahay naftayda oo waxaan rabaa dabaqa inaan iska soo tuuro kaftan lagama dhigayo serious ayaa loo qaadanayaa sidaasay noqotay in booliiska iyo caafimaadka loogu yeero oo loo gudbiyo laamaha caafimaadka iyagoo jeegareeyey kuna rifeer gareeyey dhakhtarka maskaxda haddii buuq jiro iyo hadday dhibaato kala jirto si loo kala saaro waxa haya hadday yihiin daroogana dhiiggiisa la testigareeyo hadday tahay maskaxdana in lala tacaalo oo terabi la geeyo oo la dhegaysto oo hurdo la siiyo oo lagu nasiyo meesha hadda uu joogana waa magaalada Oslo baadiyaheeda ma aha duurkeedana ma aha waa magaalada Oslo dhexbartankeeda qof kasto adreeska yaqaana ama Google garayana wuu heli karaa waxaana la tacaalaya dhakhaatiir siinaya maaragtay talooyin dadka aan aqoonin wadamadan aan aqoonin systemka iyo nidaamka wadanka Norway wuxuu ku jiraa wadamada ugu caafimaadka fiican ugu amniga badan ilaahay baa amni leh laakiin ugu amniga fiican wuxuu ku jiraa wadamada ugu nidaamka wanaagsan oo aan la musuqmaasuqi karinin wax la qaloocin karin waxna aan la khaldi karin marka maanta waxaana soo dhex gashay weekend ayaana soo dhex galay usbuucan weekend ayaa jiray
oo ah sabti iyo axad waana meesha Soomaalidu badankooda u dulqaadan waayeen oo yiraahdeen safaaraddu may la xiriirto safaaraddu may hadasho safaaradda maanta way gashay hawshiisa waxayna wadaa inay u process garaysa arinta ayagoo la xiriiray dhakhtarka marka ugu horeyso dhakhtarku u fasaxana safaaraddu way la kulmi doontaa jawigiisuna aad ayuu u soo fiicnaanayaa waxa jooga oo timid walaashiis adeerkii dhalay iyo walaalkii oo markii habeenkiiba yimid oo aabihii dhalay aayadiis oo ah almost hooyadiis camal laba eedadiis dhashay intaasoo familkiisa hoose ah baa jooga oo anaguna aan garab taaganna oo la shaqaynayno marka cid intaas uga fiicnaan lahayd oo aan aabihii iyo hooyadii ahayn ma jirto aabihii Allah u naxariisto hooyadiisna waa la contact garaynay oo waana la soo xiriiraysay oo waa uga warramaynaa xaaladiisa iyo caafimaadkiisa iyo situationkiisa siduu yahay waxaan rabaa marka dadka sida qaldan fiyuuska uga raadinaya ama sumcadda dadka ku xadgudbaya ama tuubaraaca saa u taqaanaan idinka luqadahaas iga badiya iyo hoos ka siida iyo waxaas malaayacniga ah qofka caafimaad markay joogto ilaahay oo caafimaadkana bixiya cudurkana baxsha waxaad mudantihiin inaad u wada ducaysaan qofku midda kale